xaaladda maanta ka abuurantay deegaanka Soomaaliya Itoobiya gaar ahaan caasimadiisu waa xaalad cusub deegaanada Itoobiya ee federaalka horay umayna soo marin go'aankan uu qaatay ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo ciidamada ugu soo diray waa mid cusub isaga laga rabaa berito arbixideeda iyo inuu ka jawaabo haddii qaladaadku xagga deegaanka ka jiraan deeyada ahaydina bixiso ururada mucaaradkuna de ma aha inay u durbaantumaan oo ay yiraahdaan waa sax wixii maanta meesha ka dhacay no hadaad ogolaato maanta intaan giya lagu soo weeraro adigu si aad doonayso inaad berito kursiga timaado adigana ka unba lagu soo weerari doonaa wixii dhacaya ha dhaceen laakiin dadka iyo shacabka iyo deegaanka iyo hantidiisa iyo maalkiisa waa inay nabadgelyo helaan dadkuna waa inay inta ku wada shaqeynayaan kalshaale أحمد حريرك للدوان وساكن لسمي مجالات الجيجا حالد وايد جنتاي أدي وجد وانتاي سيدي شلي أي أهيد مجالات ساك وحلو أركي بوليس كرب شذاها كهر تجا أو صومالي وبدن أو وتيبورر waxa kale ugu jiray koofiyadaha qafilan madaxa iyo caagaga ay gashtaan lugaha si ay uga hortagaan wixii rabshadaha ama dhagax tuura ama dhibaataha ay yimaada ilaa 10 qiyaas ay u socdeen wadooyinka magaalada dhex marayeen iyaga dadkana waa ay dhex socdeen waxa kale oo iyana la soo sheegay dhinaca Baabili oo ah deegaanka ka tirsan dhinaca ismaamulka Oromiya iska hor imaad sidii kii jigjiga shalay ka dhacayo kala in asna uu shalay halka ka dhacay inkastoo aynan shalay ka waramin waxa uu dhex maray Soomaali iyo qowmiyadaha kale dad maxaan ku raahdaa ka soo jeeda oo Oromo u badan sida la sheegay burbur hantiyad ayaa la soo wariyay laakiin ma aanay jirin wax dhimashaha dhaawacyana waa ay jireen tiradooda lama xaqiijin waxa la sheegayaa in xaaladdu ay faraha ka baxday laakiin markii dambe militariga ay soo farageliyeen oo ay xakameeyeen oo ay nidaamkii iyo kala dambeyntii iyo controlkii ay dib u soo celiyeen dhinaca magaalada jigjiga waxa la sheegayaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar magaalada in uu wali ku sugan yahay laakiin meesha uu kaga sugan yahay laba sheegin laakiin waxa la aaminsan yahay in uusan ku hoyanin madaxtooyada dawladda Itoobiya dhinaceeda waxa ay sheegtay in ciidamada militarigu ay qaadi doonaan dhammaan talaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliso nabadgelyada gobolka Soomaalida ee ku yaala bariga wadanka kadib markii isku dhacyo ay shalay ka dhaceen magaalada Jigjiga kuwaas oo galaaftay nolosha ugu yaraan 10 qof oo maxaan ku raahdaa dadka halka ku noolaa ah xitaa isku dhacyada waxay ka dhaceen meelo kale qowmiyadda Soomaalida waxa la sheegayaa in ay weerar ku qaaday dadka qaybaha kale ee wadanka ka soo jeeda bililqa ayaa la sheegay halka inay ka dhacday sidii shalay aan warinaynay xukuumadda Itoobiya waxa isku dayeysay in ay u awood sheegato maamulka deegaanka Soomaalida laakiin dad gureynta ciidamada ayaa waxa la leeyahay waxay dhalisay caro maxalliga xoog leh ugu yaraanna waxa mar kale aan ku celiyay leeyahay ilaa 10 qof ayaa halka ku dhintay dadka wax falanqeeyana waxa ay sheegayaan in xiisadda ay sii kicinayaan mucaaradka oo si xoogan uga soo horjeeda maamulka jigjiga ururka ONLF waxa ay ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha inuu hakiyo dhaqdhaqaaqa military uu bilaabo hanaan nabadeed haddaba mushkiladan ilaa iyo intee in la eg ayay gaari kartaa arrintaas waxa aan hor dhigay Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha gobolka waxa keenay runtii dawladda deegaanka fikirka ay qabto iyo fikirka uu Abiy Ahmed qabo oo kala fogaaday bariyahan oo dhan soo xumaanaya gaar ahaan dagaalada ka dhaxeeya qowmiyadda Soomaalida iyo qowmiyadda Oromoda gaar ahaan bulshooyinka degan meelaha xadka baa la isku afgaran waayay waxa kaloo arrinta dad ku sii shiday hadalkii Abiy Ahmed ka sheegay markuu Mareykanka marayay uu yiri shidaalka laga filanayo deegaanka Soomaalida waxa ku yeelanaysaa 5 ilaa 10 gacmood marka boqolkii meelood loo dhigtaa iyadoo la filayo 8 bilyan sanadkii inay ka soo bixi karto waxay Soomaalidu u aragtay selu iyo tan saddexaad oo ah in ay soo farageliyeen shirar qoliyadooda deegaanka muddo ku abriyahan ba ay ka wadeen dirrada iyo meelahaas in ay dawladdu dhinaca la soo safatay saddexda arrimood baa arrinta saxiixa marka arrintan ku saabsan ugu dambeysay ee ah in dawladda ay la soo safatay sida aad sheegtay dhinaca mucaaradka saameyn intee lag ay yeelan kartaa saameyn bay ku yeelanaysaa because mucaaradka la sheegayo mucaarad urursan maaha mucaarad axad qarameed la maaha ama axad xisbiyeed la maaha mucaarad chairman ku xigeen iyo gudoomiye iyo program iyo barnaamij ay
ku hawlgalaan ma aha ma register garaysna oo qanuunka Itoobiya u dhigan ee la xisbiyaadka dalka ka hawlgalaya hal qoro oo hal diiwaangeliyo ma aha cidda kaliya ee meeshan la rabay in uu Abiy Ahmed intuu isugu yeero fariisiye dhexdhexaadiyo waxay ahayd dowladda deegaanka iyo ONLF oo muddo 30 sano soo dagaalamaysay wada hadalladana u socdeen taama uu sameyn laakiin hujuum degdeg ah oo cid uu maanta oranayo waa ku bedelayaa hebel iyo hebel aanay meesha oo lin talana ka diiday dad badan oo talo u soo jeediyay nadman ay fiicnayd inuu isku keeno dowladda deegaanka iyo xisbiyaadka magacooda aan sheegay gaar ahaan ONLF oo wada hadal loo furaa wuxuu ka doorbiday inuu gacan bidixaynta iyo dhibaaxada ku dhufto deegaanka iyo dowladda deegaanka dhisay Faisal iminka xaaladda sida muuqata waxa ay ku sigatay faraha inay ka baxdo qaabka ay u falceliyeen ama ay uga jawaabeen maamulka Soomaalida iyo qaar kamid ah shacabkana waan aragnay marka nidaamkii federaalka Itoobiya iyo isbedelada Abiy Ahmed uu waday ilaa halkay gaari karayaan ay kula tahay horta Abiy Ahmed wuxuu noqday ilmo dhashay oo markaa cudur kanaac cuntay hadda wixii ka dambeeyay sidii u kobci lahaa ay aad xawaare ku kobciya ay yartahay walaal arintani kama dhicin markii ugu horeysay Soomaalida markay arintan oo kale u dhawaatay inay ka dhacdo gobolka Oromooda lama magarsa maqaal dheer iyo warbixin warinta ka dhiibay wuxuu tibaaxay sida aanay marnaba munaasib u ahayn in dowladda dhexe ay soo farageliso rijinada haddaanay ka ahayn inay codsadaan oo rijinku yidhaahdana soo farageli iyo markay weliba codsadaan in qaraarka loo geeyo baarlamaanka nationalka oo la yidhaahdo waa u baahanay security iyo nabadgelyadii la gacanteeda ka baxday waxaan rabnaa federaalku inay soo farageliso sidaas oo keliya baa lagu soo faragelin karaa ku dootamay lama magarsa beriga sidii TPLF ay saysteen Abiy hadda waxaa la arkayaa inuu sharcigii jabiyey inuu ku xadgudbay arrintan haddaan hadda intay cusub tahay aan la qabana farakabaxna noqonaysa waxa kaliya ku daraya waxa weeye xaguu Abiy dadka ka damin lahaa maanta hanjabaad weyn ayaa ka soo baxday difaaciisa war uu soo saaray wasaxaafadeed oo moodo inuu leeyahay gacan biraan ku qabanaynaa inkastoo hadda la sheegayo xoogga Soomaalidu gaar ahaan Liibiya iyo shacabkiisa wada inay deegaano badan dib u qabsadeen oo markii hore Soomaalida ka maqnaa sida Baabil oo kale waayahay ugu dambeyntii si kooban haddaan u fiirino nidaamka dowladda deegaanka Soomaalida iyo maamulkooda iyo madaxweynahooda Cabdi Maxamuud Cumar xagee ku dambeyn doonaan ayaad u malaynaysaa runtii waxay ku dambeyn doonaan in wada hadal la galo gaar ahaan haddii ay afgartaan ONLF iyo dowladda dhexe in ay noqoto si nidaamsan in awoodda looga wareejiyo walba Cabdi Maxamed oo hadda aad moodo inuu cadow badan yeeshay sida loogu wareejinayna waa inay noqotaa si ku meel gaari dowladdiisa hadda joogta in cid laga dhex dhiso hadhowtana wada hadal la bilaabo ONLF iyo dadyoga kale la tixgeliyo wada hadallada uu bilaabay garaadka guud ee Jigjiga degan garaad kulmiye intaa wixii ka baxsan waxay noqonaysaa nidaamka la yiraahdo dictatoriyad in ay dowladda federaalku sharciga dhaqanka iyo axadi qarameedkii u yaalay dalka inay ku xadgudbaan taas oo lagu soo geeyay shaqada jidka raacaan